kulankan oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay odayaal waxgarad iyo waliba sidoo kale qaybaha kala duwan mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed. Ujeedada kulanka loo qabtay waxa ay ahayd sidii taageero dhab ah loogu muujin lahaa ra'iisul wasaaraha dhawaan ay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyeen mudane Maxamed Xuseen Rooble. Xubnaha odayaasha ee kulanka ka qayb galay waxa ay ku baaqeen ra'iisul wasaaraha inuu ka shaqeeyo xukuumad tayo leh sidii uu u dhisi lahaa sidoo kalena ka shaqeysa horumarinta kaabayaasha muhiimka u ah bulshada, la xisaabtanka iyo waliba sidoo kale horumarinta cadaaladda. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka hadlay. sida ka muuqata cinwaankaba ra'iisul wasaaraha cusub waanu u hambalyeynaa horta waa taageersana waana u hambalyeynaa hambalyada waxaan ugu hambalyeynaa inuu ka mid yahay ka mid noqday ra'iisul wasaarayaasha ummadda Soomaaliyeed. waxaanu leenahay soo dhawow ra'iisul wasaare. marka labaad waxaan u muujinaynaa taageero beeshan halkan isugu timid ama cidi ka timid oo nabadoonadeedii ay qayb ka mid joogaan iyo waxgaradkeedii codkar iyo culimo dhaqan iyo siyaasiyiin waxaanu u muujinaynaa taageero. ilaahay waxaan ka baryaynaa xilka loo dhiibay in ilaahay uu fududeeyo oo xilkaas ilaahay uu saqir istaga umadiisa isagana kii lagu nashaxo oo umadiisa si ugu shaqeeyo nasteexa ilaahay ka dhigo. inta ka bacdi waxa la yiraahdo hadalku babadna waa soo dhaweyn baa la yiri. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ra'iisul wasaare soo dhawow. waxaan kugu soo dhaweynaynaa si mugle. waxaan rabaa inaan kaala dardaarmo arrimaha Kenya ay ku wada xuduudka Soomaaliya xuduud beeneedka ah shacabka maalin iyo habeenba lagu laynayo. arrintaasna waxaan rabnaa inaad si gaar ah u fiiriso maadaama aad ra'iisul wasaarihii dalka tahay. arrinkaasna waa ka codsanaynaa. waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo dhammaan shaqooyinka la rabo in la qabto insha Allah qayb baan ka noqon doonaa. maxaa yeelay waxaanu doonaynaa dalku inuu hagaago, dalku inuu dego, in cadaalad la helo, in la wada shaqeeyo. intaas baa loo taagan yahay. dhinaca dhaqaalahan waxaan kula talinayaa dalku ma lahan asad ama hanti ma lahan dalka. asadkuna waxa weeye dhinaca dhaqaalaha marka la tilmaamayo waa currency ama lacag. waa inuu dalka lacag yeeshaa gaarsiisaa inuu dalka Soomaaliya maanta dhaqaale yeesho cadaaladna ku dadaal. waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare xilka ilaahay ha ku fududeeyo. waana ku mahadsantahay waana ku soo dhaweynaynaa. ugu dambeyntii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob oo u badnaa talooyin loo jeedinayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. waxaana warbaahinta iyo waliba sidoo kale ka qaybgalayaasha kulanka u akhriyay Ugaas Maxamed Wali Sheekh Axmed Nuur. warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankii beesha daarood ay ku yeelatay maanta magaalada Muqdisho oo ay ku soo dhaweynaysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee cusub Maxamed Xuseen Rooble kuna taageeraysay. kulanka beesha waxay isku afgaratay inay soo dhaweyso ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayna taageeraan si wada jir ah oo kaliya laaba ay u taageeraan. lambar 2 beeshu waxay kula dardaarmaysaa muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha cusub in uu wax ka qabto amniga oo uu ku dadaalo dhaqaalaha inuu wax ka qabto uuna ogaado dhibaatada ka jirta xuduudda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo gaar ahaan dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay degmada Ceelwa. lamar 3 sidoo kale beeshu waxay u ducaynaysaa ayna ka rajaynaysaa inuu noqdo kii dhammaystira
wixii ka horreeyey xukuumaddii ka horreysay xasan cali khayre qabyo ka ahaa kii dhammaystira siyaadana ku dara kii ilaaliya midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed kii ilaaliya kana hortaga khilaafka xukuumadda hadday ahaan lahayd baarlamaanka hadday ahaan lahayd madaxweynaha federaalka hadday ahaan lahayd dhammaan dowlad goboleedyada hadday ahaan lahayd dhammaan khilaafyada ummadda Soomaaliyeed kii ka hortaga inaysan dhicinna ku dadaala hadday dhacdana siduu u soo ururin lahaa ka shaqeeya inuu noqday u rajaynaysaa beeshu waxaan leenahay kii guulaysta Allah ha kaa dhigo ummadda Soomaaliyeed kii ay ku raysato Allah ha kaa dhigo ummadda Soomaaliyeed kii wax u qaban lahaa Allah ha kaa dhigo cabdifataax xasan kalgacal warbaahinta goobjoog muqdisho